بسم الله الرحمن الرحيم. كلن كان شرفت بدن عاون وان آديات بانو سلامية. وحان طبعا مرهدي ولكن أينو كهاللينو حسكيسة iyo geeridii ku timideen xadinta lahayd oo ahayd lama filaanka inkastoo geeridu mar kastaba loo joogo haddana xaalkiisa iyo maaragtay qofka daadiisa iyo binaadamku waxyaalo badan buu wax ku qiimeeyaa marka siyaalo badan geeridiisu mid unexpected death bay ahayd waxaan yidhahdaan geeri lama filaana aad iyo aad ayaan maaragtay dadkii uu ka baxay asxaabiyi ehelba lahaa qoyskiisa ugu horeeyaan marka koowaad ugu tacsiinaya waxaan aaminsanay maxamed geeridiisa inay dad badan oo Soomaaliyeed oo afarta koone ee adduunyada kala jooga shanta gobol ee Soomaalidu ka degto bariga Afrika jooga inay ka xanuunsadeen oo guryo badan looga murugooday loogana soo duceeyay taasuna runtii wax iska yimid oo bilaash ku yimid oo la iska caashaqay maxamed ma ahayn dadku intaa waa dhimanaya dadka ilaahay baa maaragtay adoomaha ilaahay baa kala fursad roon oo kala ayaan roon oo kala nasiib roon marka anayste in sabab muhiim ah oo isaga ka timid oo ilaahay ku galladaystay oo ah samakatalis awgeed inuu ku kasbaday maaragtay in qalbiyada dadka faraha badan af Soomaaliga ku hadla ee gobol walba jooga deegaan kasta jooga iyo dunida dacaladeeda inay sababtaa darteed samakatalisnimada darteed inay maaragtay ugu murugoodeen ay sababtu taa ahayd nin samafalaa buu ahaa quraankuna wuxuu leeyahay hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan wanaaga falistiisu jawaabteedu waa wanaagun qof wanaag fala oo natiijadiisu ay xumaan noqotaa ma jiro marka munaasabadan aynu ku xusayno aynu maxamed wuxuu ahaa wax kaga sheegayna kama bogan karne ujeedkeedu waxa weeyaan inaynu xaqiisii qayb ka mid ah marino ujeedka labaad ee ku hoos jira oo aan isleeyahay kaba sii muhiimsan taana waxa weeye in dadka kale ee isaga ka dambeeya inagu aynu ka mid nahay iyo inta kale ee media ka maqli doonta lagu dhiiri geliyo inay maaragtay samafalayaal noqdaan ujeedku waa intaas marka mar labaad ilaahay oo naxariisto walaalkeen maxamed baashe xaaji xasan halkan baa laga sheegay oo maxamed wuxuu dhashay 1963kii marka saa la eegana cimri gaaban oo dhowr iyo 50 sano ayuuba jiray maxamed haddana cimrigaa gaabnaa ee uu jiray oo kala badh in ku dhow ama ka badani ay kaga luntay qalalaasihii iyo dagaaladii Soomaaliya ka socday iyo qaxoonti iyo laajinimo ay kaga luntay haddana inta uu soo hadhay maxamed wax badan oo dadka Soomaaliyeed wax u taraaya ayuu ku bixiyo ku soo saaray runtiina waa wax ku dayasho mudan weeye maxamed wuxuu diiwaan geliyay taariikhda iyo suugaanta ay dadka Soomaalidu leeyihiin hanti wadareedka ka dhaxeeya in badan oo kamidina ay luntay intii uu ka gaari karay isaga tacabkiisa ahayd uu diiwaan geliyay waanu ka shaqeeyay ilaa maalintii ugu dambeysay isagoo hawsha ku foogan aanay xoolo ka soo galeyn wax kale aanu ku rabin cid kale magac kaga rabin isagoo ku foogan ayuu maxamed dhintay maalintii uu dhakhtarka galay maalintii ugu dambeysay aan wada hadalay wuxuu igala hadlayay buuggii lixaad oo uu researchkiisa wado oo uu qoraayo oo uu maaragtay xogtiisa raadinayo ayuu igala hadlayay bilihii ugu dambeeyayna maxamed waxaad ba moodaysay in lagu yiri waqtigaada haysata aad buu gaaban yahay marka runtii habeen iyo maalin wuu shaqayn jiray wuxuu igu oran jiray 4 saacadood baan seexdaa maxamed waxay ahayd dhaqankiisa wax kamid ahaa marka tiraahdo waxa aynu sameeynaa la soo hadal qaaday inta badan dadku waynu eegi doonaa iyo waynu yeeli doonaa ay dadku inta badan yiraahdaan laakiin maxamed saama ahayn let's do it buu oran jiray inagu dhaqaajidaas baan ku keenay wax badan oo uu dadka Soomaaliyeed uga tagay maxamed intii uu noolaa cimrigiisu wuu gaabnaa dadaalkiisuna wuu badnaa waxtarkiisuna aad iyo aad ayuu u badnaa maxamed wuxuu ahaa oo aan ku aqaanay anigu dadka bareedahooda dhiibta ee wixii ay la tahay sheega ee aan ka warwareegin buu ahaa waxa kale oo lahaa dadka
cuduradan yaryar ee soomaalida ku dhaca ee maaragtay qabiilka iyo maaragtay xasaasiyadda iyo qof nacaybka iyo waxyaalahaas magacyada kala duwan leh dadka ay ku dhacaan ma ahayn immunitygiisa iyo maaragtay difaaca jidhkiisa ee waxyaalaha uu leeyahay xoog buu sareeyey maxamed wuxuu dhintay maxamed aan hubaa inuu dhintay isagoo waxyaalaha ka nabad qaba isagoo aan cidna waxba u qabin isagoo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaanba wanaag la jecel oo ku fogan sidii ay wanaag u gaari lahaayeen ayuu maxamed dhintay maxamed tiisi wuu gutay baan isleeyahay waajibkiisii wuu gutay hadday Soomaalidu tiraahdo hebel ciil kaga muu dhiman runtii maxamed ciil kaga muu dhiman marka wuxuu man doonayaa inaan ku soo ururiyo hadalka isagoo waqtiguna aad iyo aad inoogu gaaban yahay tacsidii iyo quraankaan akhriyay waa u tagayaan ninkii Ilaahay u naxariistay timacada isagana Ilaahay u naxariisto gabay barodiiqo uu ka tiriyay geeridii Cabdirashiid markii la dilay oo ku munaasib ah qof kasta oo qiimo leh oo inaga dhinta ereyadii u dambeeyay uu ku soo gabagabeeyay ma ku soo gabagabeynaya marka tacsidii iyo quraankaan akhriyay waa u tagayaan togagii jannada ee bahaytiisa haw furee innaka iyo ubadku ka tagay samirku waa toos buuri Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu naxariisto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ana raacinayaa codkayga geerida naxdinka iyo xanuunka badan lahayd ee Allah u naxariistay Maxamed Baashe oo ahaa haliyey Soomaaliyeed oo maxay ahayd taariikh ka tagay kuna sii khatimay waliba taariikh wixii hore oo dhan ka sii weyn oo ah mar kaliya midnimo inuu ummadda Soomaaliyeed ku baraarujiyo waxay tahay qiimaha midnimo Maxamed Baashe wuxuu ahaa qof aan aad isu naqaano muddo dheer wada joognay London aad maxay tahay isugu dhaweyn walaal fiican buu ahaa nin weyn buu ahaa wadadiisa iyo khibraddu hayaa ay ka weyn tahay maaragtay fikirkiisu ay ka weyn yahay daadiisa Maxamed wuxuu ahaa qof qiimo leh halgamaa soo maray marxalado badan markuu SNM ahaa markuu London yimi haddana uu maaragtay ka shaqeynayay ummadda caawinayay markuu ururinayay taariikhda Soomaaliyeed uu islahaa waxba yaan maaragtay lala godgelin Ilaahay wuu ma garanaysaa garansiiyay wuxuu hayay inuu ka reebo taariikhdii halgamaagii badnaa ee Soomaaliyeed ee kala duwanaa uu wax ka qoray Maxamed sidaan u sheegay wuxuu ka tagay taariikh aad u weyn waanu ka wada naxnay ka wada xanuunsanay aniga dhowr goor ila soo hadlay intaanu dhakhtarka gelin mashaariic waaweyn oo kale sii waday Ilaahay naxariistiisa jannaha siiyo caruurtiisii iyo xaaskii iyo qaraabadii iyo ehelkii dhammaan Ilaahay maaragtay samir iyo iimaan ka siiyo waa qof nagu weynaa aan laga samri karin laakiin Ilaahay baa ka haystay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadiisii ugu deeqo ummadana inta Soomaaliyeed iyo inta muslimiinta ee xanuunkaas u dhintay iyagana ka wada ma garanaysaa jannadiisa ugu deeqo dhammaanteena halkii uu ka waday in guushii uu doonayo inuu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed mar kale iyo midnimo in toojkii hore loo qaado oo la sii wado hawsha uu bilaabay markii u dambeysay buuggii haltis qaaday Cali Sugulle Dun Carbeed buu ku hawlanaa marka Ilaahay u naxariisto si Soomaalida kalena ay ugu duceeyaan hashtag baan sameynay oo Twitterka iyo Facebook aad isticmaali kartaan oo ah Baashe u ducee marka waa isticmaali kartaan hashtagaas si dadka kalena ducada ay u sii gaadho iyaguna u sii duceeyaan Maxamed Baashe Xaaji Xasan sabir iyo iimaan Allah inaga wada siiyo ehelkiisina samir Allah ka siiyo si gaar ah ehelkiisa samir Allah ka siiyo caruurtiisa iyo xaaskiisa Soomaali weyn Allah ka siiyo samir isagana jannatul firdaws Allah waafajiyo Maxamed waqti dhow baan isbaranay ما أنا أركن ألو فكر كيسان لكن أرك وقت الدوان نسبرن لي درين كيس كل كان أركبان ألو رادي وأول هذا اللي وحكوا الرئيس هذا الكيجا ونكلا ورو إيش هذا أو هذا المال الملك تشيدي إنه أركي ويقول maxaan ku dhahdaayay Soomaali waxay u baahan tahay maxaan ku dhahdaayay wax la yiraahdo in la gacan siiyo cidda Soomaalida ah
waxaa soomaaliya ku habsatay ood ogtihiin dhallinyaroy nin soomaaliya inuusan oo siyaasiyu inuusan dhihi karaynin soomaali weyn derbi bay noqotay. waxaa sidaasoo kale gooni u ahayd somalilan nin jooga oo ku abtirsadayo inuu dhihi karin soomaaliya iyo dib ha loo midoobo, derbi laba taabtaanay taasuna noqotay. maxamed labadiiba isku mar buu jabiyey baan aaminsanahay. wax aan lagu dhiirin karin oo wax taabuudahoo meeshiisa lagu dhowraa ayuu ka leexday oo wuxuu aaday wixii danta soomaaliyeed ahayd. wuxuu ku dhiiraday inuu yidhaahdo dib ha loo midoobo, wuxuu ku dhiiraday inuu yidhaahdo soomaalinimo, wuxuu ku dhiiraday inuu si baleera u sheego in waxa jiraa ee hadda socdaayo ay khalad yihiin. taas baa mataqaana aniga i kicisay runtii. macallin buu noo noqday oo dadkii soomaaliyeed buu macallin u noqday. waxaa hubaala inuu mudan yahay in lagu magacaabo meelo badan. waxaa hubaala inuu mudan yahay in la qadariyo. aqoontaa hore uu saaxiibkay u lahaa ee uu ka sheekeynaya anuu uma lahayn, laakiin intaan ka arkay baa intaasa. aad baanad u mahadsantihiin haddaad ka soo qayb gasheen dhallinyaro. waxaana rajaynayaa inaynu isugu tagno si allaale sidii maxaan ku dhahda loo qadarin lahaa isaga iyo kuwa noociisa ah. haddaynaan kuwana wanaagsan qadarinin meel ma gaadhayno. waa mahadsantihiin. marxuumka inaga geeriyooday dhammaanteen wuxuu ku sifaysnaa kategorigaas ama habdhaqankaas. annagu waxaanu isbarannay 1999kii 21 sano ka hor. qoys ahaan aad baanu qaraabo u nahay, waanu isxignaa, laakiin ismaanaan arag. anigoo maqaal qoray buu maqaalkiibu soo akhristay, dabadeedna wuxuu yihi ninka maqaalkan qoray baan rabaa. isagoo i raadinayo anoo kalaas ka soo baxay London ayaa la yidhi waa kan ninka qoray. marka dee soomaalidu is waraysato marka dambe way isu tegeysaa. waan maqli jiray jabhaddii markaa waxaa, laakiin dee ismaanaan arag personal. maqaalkaa uu soo raadiyey sidaanu maalintaa isu raacnay, lugta isula helnay, ilaa hadda markuu dhimanayay saasaan u wada hadlaynay. boqolaal waxaanu soo wada maray howlood. wuxuu la yidhaahdaa 1963 buu dhashay, laakiin aniga mar aanu sheekeysanaynay 64 ayuu igu yidhi. oo habeen waxay aada isugu dhowaayeen, waxna waan ka qoray kolley dadkii arkay. sayid maxamed cabdilla xasan bay 3 meelood iskaga dhowaayeen. kow horta isku ceel bay ku dhasheen, isku balli sacmadeeqo meesha la meygaagle ayay ku wada dhasheen. isku sanadna way dhasheen oo 100 sano baa u dhaxaysay 1864 sidaa uu jaamac Cumar Ciise qoray. dadka qaarna waxay yiraahdaan 59, dadka qaar 65, laakiin 64 bay u badan tahay. isku sanad bay dhasheen. mucjisada kalena waxa weeyaan isku sanadna dhinteen. oo 1920 buu sayidku dhintay, maxamed baashana wuxuu dhintay 2020. intaa waxaa u sii dheer islaamaha oo maxamed baashe aabihii ayeydii dhashay oo Maryan Magan Seed iyo Cara Seed Magan walaalay ahaayeen sayidka hooyadii iyo maxamed baashe ayeydii. marka nin morales uun ka ku xaydaan halgan ku dhex jira ayuu ahaa. ilaahay wuxuu hibo u siiyey qoraalka iyo dulmidiidka wax la yidhahdo. meel kasta dunida dulmi baa laga cawdaa. isagoo form 4 imtixaankii u fadhiisanaya 83 ayuu dulmigii iyo tacadigii dowladda u adkeysan kari waayay maxamed siyaad. dabadeedna habeen madow buu dhaqaaqay, gor qaatay, jabhad noqday si uu dulmiga ula dagaalamo. maalintaas ilaa hadda ninkaasi waxa qudarir buu ahaa, dagaal buu ku jiray. raggii la midka ahaa waan sheegaaye, Jamaal Cali Xuseen la yiraahdo isku kalaas ahaayeen. Jamaal wuxuu noqday banker, Hartford buu tegey, intaasoo process buu maray, bangiga City Bank buu madax ka noqday. maxamedna qori buu sitayo, wuxuu doonayay cadaalad iyo wanaag. marka runtii waxaan jecelahay inaynu u ducayno, inaynu ilaahay jannada uga barino. 6 buug buu qoray sidaa Cumar sheegay. buuggii ugu horreeyay halka haleel buu ahaa, Traabo ka qoray. buuggii labaadna wuxuu ahaa
kartida haweenka soomaaliyeed. buuggii saddexaadna wuxuu ahaa afka hooyo waa hodan. wuxuu ku xijiyey hal tis qaaday oo xaaji aadan afqalooc iyo suugaantiisii gobonnimo doonka uu ka qoray. dabadeedna haddana kii cali sugulle ayuu dhameeyey. daabacaddiisa in julaay xamar lagu qabtay ahayd bandhiga. ilaahay ma qadarin inuu halkan yimaado oo kusoo bandhigno. nin doonayey soomaali meelay joogtaba 30 milyan ee soomaaliyeed inay wax isu noqdaan oo aanay culloobin oo ay walaaloobaan buu ahaa. waa taasaan kusoo gabagabeynayaa. dad aan habeen maaragtay dalka u dhibaatoon ama aan qori u tuurin baa laga yaabaa in halyeeya laga dhigo oo iskuulle loogu magac daro oo xaafada loogu magac daro. ana waxaan isleeyahay wuu mudan yahay in la xuso oo la weyneeyo oo la qadariyo oo lagu sunto meelo maguuraana. waanaad mahadsantihiin. aad iyo aad baan idin salaamay. waxaa ummadda soomaaliyeed ka baxay sida ay rag badan oo qaali ah ay ugu baxeen horey. nin qiimo badnaa runtii bulshada soomaaliyeed qiimo weyn ku lahaa. nuxurku waa intay guddoomiyuhu tiri, laakiin markaan in yar ka taabto maxamed baashi wuxuu ahaa runtii nin aqoon-yahan ah, nin geesi ah, nin codkar ah, nin fikirkiisa aan la gabanin ee bulshada gaarsiiyo way of teaching waxa la yidhaahdo yaqaana habka wax loo baro dadka yaqaana gaarsiin kara fikirkiisa dadka ka gedi kara ayuu ahaa. macrif fiican baan ahaynay London. runtii waa isla shaqaynay. wuxuu ka shaqayn jiray islaaxa iyo ummadda soomaaliyeed ee UK ku nool isku haynteeda iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda guud iyo nolosha meesha lagu haysto.